Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Maanta waxaan idiin soo gudbin doonaa 10 webi ee ugu dheer caalamka, dhanka dhirirka iyo ballaca uguna biyaha badan caalamka oo dhan. Waxaan ka bilaabi doonaa nambarka 1 ilaa iyo nambarka 10. Webiga ugu horreeya ee nambarka 1 ku jiro waa webiga Niil. Webiga Niil waa webiga ugu dheer caalamka oo dhan, waxa uuna qulqulaa dhul cabirkiisu gaadhayo 6,853 kiiloomitir. Ilaha ugu waaweyn oo ka soo dhasho waxa ay kala yihiin 2 qaybood oo kala ah Niilka Cad iyo Niilka Buluugga ah. Niilka Cad ayaa ka soo bilaabma biyo-shubka buuraha dhaadheer ee waddamada la isku yiraahdo harooyinka waaweyn ee kala ah waddamada Tanzania, Burundi, Uganda iyo Koonfurta Suudaan iyo Congo. Niilka Buluugga ayaa isna sidoo kale waxa uu ka soo bilaabmaa harada Tana ee waddanka Itoobiya. Haradaas oo ah biyo-shubka ugu weyn ee isugu yimaadaan biyaha ka soo shubma buuraha jooga dheer ee waddanka Itoobiya. Khubarada ka faallooda dhinaca deegaanka ayaa ku sifeeyey webiga Niil Jannada Afrika. Webiga Niil waxa uu isku soo maraa in ka badan 11 waddan oo kala ah Itoobiya, Suudaan, Masar, Uganda, Congo Kinshasa, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, Koonfurta Suudaan iyo waddanka Eritrea. Waxa uu socdaba ugu dambeyntii webiga Niil waxa uu ku dhammaadaa badda Mediterranean-ka ee waqooyi xeebaha Masar ee qaaradda Afrika. Halkaas aan ku dhaafno webiga 1 ee ugu dhirirka badan caalamka. Nambarka 2, webiga Amazon. Amazon waa webiga 2 ee ugu dheer caalamka oo dhan, waxa uuna maraa ama uu ku yaalaa koonfurta qaaradda Ameerika. Amazon inkastoo uu yahay webiga 2 ee ugu dheer caalamka, haddana waxa uu kaalinta 1 kaga jiraa webiga ugu biyaha badan caalamka oo dhan. Webiga Amazon waxa uu dul wareegaa dhulal badan oo buuraley ah oo aad u cagaaran, waxaana dhulkaas ka sameeyey ama uu ka abuuray kaymaha ugu quruxda badan uguna baaxadda weyn caalamka oo dhan ee loo yaqaano kaymaha roobaadka ugu weyn ee Amazon Rainbows. Amazon waxa uu ka soo bilaabmaa buuraha loo yaqaano Misni ee ku yaala dalka Jamhuuriyadda Peru. Waddamada uu maro webiga Amazon waxaa ka mid ah Colombia, Peru, Brazil. Marka la isku daro saddexdaas waddan, waxa uu maraa in ka badan 13 magaalo. Ugu dambeyntii, webiga Amazon waxa uu ku dhammaadaa uu biyaha ku shubaa badweynta Pacific Ocean. Halkaas aanu ka gudubno webiga 2 ee ugu dheer caalamka. Aanu fiirino webiga 3, webiga Yangtze. Webiga Yangtze waa webiga ugu dheer guud ahaan qaaradda Aasiya, waana webiga 3 ee ugu dheer caalamka oo dhan. Waxa uu gaaraa dhirirkiisu 6,300 kiiloomitir. Inkastoo uu yahay webiga 3 ee ugu dheer caalamka, haddana waxa uu maraa hal waddan keliya. Waxa uu ka bilaabmaa waddanka Shiinaha, waxa uuna ku dhammaadaa isla waddanka Shiinaha. Waxa uu maraa webiga Yangtze boqolkiiba 50 waddanka Shiinaha. Ugu dambeyntii waxa uu ku shubmaa oo ku dhammaadaa badda Koonfurta Shiinaha oo ku beegan magaalada ganacsiyeedka caanka ee Shanghai. Webigan ayaa soo saara 3 meelood hal meel dhaqaalaha waddanka Shiinaha oo ah waddanka 2 oo ugu dhaqaalaha badan caalamka. Webiga 4. Webiga 4 waa webiga Yellow River ama webiga hurdiga ah. Webigan jaalaha ayaa ku yaala waddanka Shiinaha oo uu ku bilaabmo kuna dhammaado. Dhirirkiisa waxa uu gaadhayaa ama uu daadsan yahay 5,446 kiiloomitir. Webigan waxa uu ka soo bilaabmaa buuraleyda loogu magacaabo Beinhar ee ku yaala dalka Shiinaha, waxa uuna maraa 900 oo magaalo. Ugu dambeyntii waxa uu ka dhammaadaa xeebta badda loo yaqaano Bohia ee ku beegan gobolka Shandong ee gobolka dalka Shiinaha. Webiga 5, webiga Parana. Webiga Parana waxa uu ku yaala qaaradda Latin America, waxa uuna maraa waddamada Uruguay, Argentine iyo Brazil. Waxa uuna dhirirkiisu gaadhayaa ama uu la egyahay 4,880 kiiloomitir. Webigan waxa uu ka soo samaysmaa durduryo yar oo isku darsoomay. Parana waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay webiga 2 ee ku yaala koonfurta qaaradda Ameerika marka laga yimaado webiga Amazon. Magaca Parana
waxaa mid ka mid ah luuqadaha looga hadlo ama luuqadda loogu magac daro Tupi ee looga hadlo koonfurta qaaradda Ameerika, waxa ayna micnaheedu tahay badda yar. Ugu dambeyntii, Barna waxa uu ku dhammaadaa badweynta loo yaqaano Pacific Ocean. Webiga lixaad waa webiga Congo. Webigan Congo ayaa ku yaala waddanka Congo ee qaaradda Afrika. Webigan waa mid ka mid ah webiyada ugu waaweyn ee ku yaala qaaradda Afrika. Congo waa webiga lixaad ee ugu dheer caalamka oo dhan, waxa uuna dhirirkiisu gaarayaa 4,700 kiiloomitir. Inkastoo uu yahay webiga lixaad ee ugu dheer caalamka, haddana waxa uu haystaa rikoor u gaar ah, waxaana ka mid ah 2 rikoodh ama 2 arrimood. Waa webiga ugu gunta dheer caalamka, waxaana la sheegaa inuu hoos u qodan yahay 220 mitir, mana jirto webi la mid ah oo hoos u qodan intaasoo mitir. Wuxuu kaloo uu haystaa ama uu leeyahay waa webiga labaad ee ugu biyaha badan caalamka marka laga yimaado Amazon. Webigan waxa uu ka bilaabmaa dooxada lagu magacaabo East African Rift Valley. Waddamada uu marana waxaa ka mid ah Angola, Burundi, Cameroon, Jasiiradda Bartamaha Afrika, Congo Kinshasa, Gabon, Congo, Brazzaville, Rwanda, Tanzania iyo Zambia. Ugu dambeyntii waxa uu ku dhammaadaa badweynta Pacific Ocean. Halkaasi aan ku gudubno webiga lixaad ee ugu dheer caalamka. Aan u gudubno nambarka 7 waa webiga Lana. Webiga Lana waxa uu ku yaalaa qaaradda Aasiya, waana mid ka mid ah webiyada ugu dhaadheer caalamka, waana webiga 3aad ee ugu weyn qaaradda Aasiya. Waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay webigan jihada bari ee adduunyada. Waxa uu ka soo bilaabmaa webiga Lana buuraha loo yaqaano Baykar ee dalka Ruushka ku yaala, waxa uuna biyaha ku shubaa badda barafka fadhiyo ee loo yaqaano Atlantic Ocean ama badda barafka fadhiyo. Waxa uu dal ahaan dhex maraa dalweynaha Ruushka. Webiga sideedaad ee ugu weyn caalamka waa webiga Mekong. Webiga Mekong ayaa isna ku yaala isla qaaradda Aasiya, wuxuuna ka mid yahay 10 webi ee ugu weyn caalamka ugu badan dhirirkooda. Mekong waa webiga isaga gudba xuduudo badan, waxa uuna ku yaalaa koonfur bari ee qaaradda Aasiya. Dhirirkiisana waxa uu gaarayaa 4,350 kiiloomitir. Waxa uu ka soo bilaabmaa isha loo yaqaano Laskuk. Ugu dambeyntii waxa uu ku dhammaadaa oo ku shubmaa badda loo yaqaano koonfurta Shiinaha. Webigan waxa uu maraa ilaa iyo 6 waddan, waxaana ka mid ah Thailand, Cambodia, Jasiiradda Laos, Shiinaha, Myanmar iyo Vietnam. Halkaas aan ku gudubno webiga 8aad ee ugu dheer caalamka. Aan u gudubno webiga 9aad, waana webiga Irtysh. Webiga Irtysh waxa uu ku yaalaa waddanka Ruushka, waana webiga 9aad ee ugu dhirirka badan caalamka. Waxa uuna maraa dhulbarafeedka Siberia ee waddanka Ruushka. Waxa uuna waraabiyaa ama uu xoojiyaa webiyo badan oo kala duwan oo ku yaalo arligaas. Waxa uu dhirirkiisu yahay 4,284 kiiloomitir. Webigan ayaa waxa uu ka soo bilaabmaa silsiladda buuraha loo yaqaano Alisia ee dhaca bartamaha qaaradda Aasiya. Buurahan meesha ay ku yaalaan waxa ka kulma xuduudaha waddamada kale ah Ruushka, Shiinaha, Mongolia iyo Kazakhstan. Webiga 10aad ee ugu dheer caalamka ahna nambarka ugu dambeeyo waa webiga Niger. Webiga Niger waa mid ka mid ah webiyada qaaradda Afrika qaniga ay ku tahay, uguna magaca dheer magac ahaan. Waxa uu maraa galbeedka qaaradda Afrika, balse waxa uu ka soo bilaabmaa buuraha jooga sare ee ku yaala koonfur bari ee waddanka Guinea. Dhirirkiisu waxa uu gaaraa 4,180 kiiloomitir. Ugu dambeyntiina waxa uu ku dhammaadaa oo ku shubmaa gacanka loo yaqaano Guinea. Webiga Niger si la mid ah webiyada badan oo caalamka, waxa uu dhex maraa 5 waddan oo ka mid ah qaaradda Afrika, waxaana ka mid ah Nigeria, Mali, Niger iyo Guinea. Waxaan rajaynayaa inaad wax badan ka faa'iideen mowduuca maanta aan ka hadalnay. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka, subscribe saar,
lana soco muuqaaladeenii ugu dambeeyey. Wixii talo iyo tusaale ah fadlan noogu reeb kommentiga. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.